الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله الله تبارك وتعالى إساقا كونكم أموره إساقا أدومدي سأطليا سنن كيسانا وحا كميدا إنو أدومدي سامتحانه سيابك لقد سنة أو امتحانه مصائبتا iyo cudurrada iyo colaada nabadgelyo la'aanta dhulgariirka abaaraha masaa'ibta dhacaysa ay kulligeed waa imtixaan ilaahay wuxuu kala saarayaa adoonka xun iyo midka wanaagsan midka ku kalsoon yaqiinta qaba iyo midka iimaankiisu daciifka yahay masaa'ibtana adoomada lagu kala saarayaa sidaas daraadeed baa waxa laga maarmaan ruuxa muslimka ilaahay rumaysan iyo maalinta aakhiro qadaha ilaahay iyo qadarkiisana rumaysan inuu ilaahay tala saarto tabaaraka wa tacaala oo fazac iyo argagax iyo naxdin iyo kala orod iyo waxaan loo baahnayn iyo buunbuunis inuusan ku kicin rumaysanina maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala waxa kugu dhacaya iyo waxaan kugu dhacaynin horuu u qoray جفت الصحف ورفعت الأقلام إن ربك كوك الصونات تلسارت أوجاتو وحو إساقو كوقري وحن نسنكو أصيبين وحو سنقرين كوقود حماي وحو قرين لغا ما باقسنكو مبدأ ومبدأ أساسي لدوني روح مسلم كائنو سنمرنا الشكي كقلين وأنا مد القرآن الكريم كإله ميلا بدن إنه فري قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إلهي تلسارت تبارك وتعالى تلسار شذا إلهي وحاكم إذا إنه لن من أسبابتا إلهي إنوتشي ديي رسولك صلى الله عليه وسلم إنوتشي ديي أما أن نقضين أسبابتا معنوية ويكمل تاي مركي مصائب ترعضو حق إلهي إن لو عرره إلهي اللي سليده اللي دعيسته إلهي اللي بريه الله قرآن الكريم كو ينوغو شيغي أسباب اللي ينوغو ريدي مصائب إني كمل تاي حكمة ديدو إن الإلهي أتضرعنه لعلهم يضرعون إن إلهي أتضرعنه الأسودي ابنو كبير كي يسلوينك يقبك يوحن إنو رماضه oo tabartaada inaad qirto iyo tabardarradaada iyo waxa tahay qodobka labaad wax weeye sidaan khudbooyin hore kaga hadalay masaa'ibtan dhacaysa iyo dunuubay ku timid quraanka inoo sheegay masaa'ibtana waxa lagu qaadaa tawbad iyo ilaahay in loo soo noqdo sida ilaahay quraanka meel ka mid ah ku sheegay marka in tawbada la cusboonaysiiyo إلهي آل الله ويديستي إنه نودن بدافو ربك تبارك وتعالى وحي إنه خلطنا كسر نقنا أيضا وقضب مهمة مصائب تمرك العدنا إلهي وكو قاضى تبارك وتعالى هدي أدومدي سوء صلابتان قضب كسد حادي وحوية إن ليضنا لبضية دعوينك خاصة دعوينك خاص ككوة أما سيقود أما عذر رضا خاص ككوة نبينا صلى الله عليه وسلم وحكم ذها دعوينك وإلهي كجمع جنجلي شر عذرده دعاء عنك اللي يابا إن هذا وذكرنا إنسان إلهي وكجمع جنجلي شر جذامك يا برسك يا والدة يا عذرده حنحنور ومن سيء الأسقام هذا أنت رق وننحته اللهم إني أعوذ بك من سيء الأسقام ويكون في لنته وحكم ذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحول روحي قالين كدنب بركي قرحض العضو إلى هذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هبينك وحد بيمتشرو واغو مركو بريو هدو إلى هذا مالك وحد بيمتشرو نين أبان ليلة هذو والتابعية بحديثك وحو كورنا يا عثمان بن عفان ardaygiisii markuu xadiidka u sheegay ayuu wuxuu arkay ardaygii oo fiirinaya sheekha waxa ku dhacay xanuunka la yiraahdo faalijka waxa weeye dhinac baa ingegay
dhinac baa shalal kaga dhacay ardaygii markuu xadiidka u sheegay sheekhu wuxuu arkay sheekhiyo dhinacba ingegan yahay oo shalal kaga dhacay ardaygii oo fiirinaya markuu arkay uu fahmay wuxuu ku yidhi xadiiskan kuu sheegay waa run maxaad iga fiirinaysaa markaasuu wuxuu ku yidhi xanuunkani markuu igu dhacayay waxaa lay halmaansiiyey inaan idhaahdo bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shay-un fi lardi walaa fi asamaa waan halmaamay inaan ku xirsi xidho si ilaahay qadarkiisu iigu fulo buu yidhi bimacnaa waxa weeye waan dhihi jiray laakiin qadar ilaahay baa socotay markaa waa lay halmaansiiyey sidaasuu xanuunku iigu dhacay ee xadiidka nebiga ha ka shakinin buu ku yidhi sida abu daawuud uu soo saaray bisanadin saxiix sidaas daraaddeed adkaarta iyo adciyada mashruuca in la laasimo hadda iyo xilli kaleba waxaa ka mid a markii aayaadka ilaahay addoommadiisa ku cabsi gelinaya ay dhacaan nebigu wuxuu dhihi jiray salaada u carara xagga u argagaxa digriga ilaahay u argagaxa sadaqada u argagaxa in ixsaan la isu sameeyo khalqiga ixsaan loogu sameeyo ka dhiban dhibaatada la wadaago jeebka la furo gacanta la furo asbaabta ilaahay uu ku qaaday ka mid tahay masaa'ibta ku qaado ayadana waa qodob kaloo muhiima waay asbaabaha marka diintu inoo sheegtay inaynu ku dadaallo oo marar badan ka muhiimsan asbaabtan kale ee maadiga ah ee dhakhaatiirta iyo dowladuhu ka hadlaan kaba muhiimsanba laakiin qaar ka mida waaba kuu jeesjeesayaan markaad tidhahdaa la ducaysto ya leanna waxa weeye waxay rumeeyeen maaddo keliyay rumeeyeen cilmi badanna waa ka maqan yahay sidoo kaleeto waxaa ka mida tawakulka shareecadeennu inaa fartay inaynu qaadanno asbaabta kale ee maadiga ah ee ama la tajribeeyo oo la tijaabiyey inay xanuunadan ka hortegi karto ama ay daawo u noqon karto waxaa ka mid a nebigeennu siduu miduu sameeyey sal alla alay wasalam meelaha xanuunada noocan oo kale ah ku dhacan in la go'doomiyo nabigeena yidhi sal alla alay wasalam daacuunku meeshuu ku dhacay ha gelina haddaad ku jirtaanna ha ka bixina waxaa ka mid ah ruuxa xanuunadan gudbaya qaba inaan la mukhaalataynin inaan la dhexgelin inaan lala fadhiisanin in laga taxadaro tawakul la'aan maa waa tawakulkay ka mid tahay asbaabtii oo la qaadanayay ka mid tahay caqiide xumo ma aha maxaa yeele nebigeenna wuxuu yidhi sal alla alay wasalam ruuxa judaamka qaba ka carar sidaad libaaxa uga cararaysoo kale ka durug ka fogow waa midii cumar uu yidhi radi allahu tacala canhu ardaah markuu abu cubayda ku yidhi afiraanan min qadar illah cumarow ma qadar ilaahi baad ka cararaysaa uu ku yidhi fiqhigiisuu ka mid ahay nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah xagga haddaan aadnana waa qadar alle tan haddaan ka cararnayna waa qadar alle taa aan aadnayna waa qadar alle marka in asbaabta la qaato shareecadeennaa qabta falsafad beena ma aha tawakulkaagii iyo diintaadii iyo caqiidadaadii inay wax gaadhayaanna maa caqiidadaadaa ku faraysa asbaabta qaado waxaa ka mid ah ruuxa jiran oo xanuunada gudbo qabaayey inuusan bulshada soo dhexgelin bannaanka inuu ka joogo cibaadaadkiisa iyo ruqaskiisa bannaankaa inuu ku samaysto intii xanuunkan uu dadka u gudbin lahay oo dhibaato gaadhsiin lahaa nebigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh mid geel jiran wata mid geeliisu u fayow yahay yuusan kaga dhex darin geelagaa jiran cadhuu qabaa xanuunno kaluu qabaa geelalka fayow ha ku darin hadday xoolihii sidaa yihiin bini aadamkiibaa ka mudan saas daraaddeed baa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wafdigii haqiif markay nebiga u yimaadeen waxaa loo sheegay inuu ku jiro nin judaam qaba nebiguna sal alla alay wasalam wufuuddu markay u yimaadaanoo diinta uu ballanta kula gelaya uu gacan qaadi jiray ragga dumarka maya waxaa loo sheegay nin judaam qabaa la socda wafdiga wufuuddana nebigu waa karaamayn jiray sala allahu calayh waalihi wasalam markaasuu nebigu farriin u faray sal alla alay wasalam wuxuu ku yidhi meeshaadaannu kugula mubaayacoonno ballantii kugula gallaye iska noqo tag buu nebigu ku yidhi sal alla alay wasalam yacni wuxuu diidan yahay nin judaam qaba inuu nebigu gacan qaado salawaatu rabbi wasalaamu caleyh asbaabtii waay nebi maxamed sal alla alay wasalam tawakul iyo ilaahay oo la tala saarto iyo yaqiin nin ku gaadha ma jiro laakiin si khaladayo inaan wax u fahmin asbaabta wiqaayadii is-ilaalintoo la qaataayey tawakulkiibay ka mid tahay diin xumo ma aha
si khaladayaan wax loo fahmin diinteenna ina farays ka jiran inuu isdaaweeyo diinta farays khaasatan ruuxu markuu cabsi dareemo hadduu ruuxu baqayo مثلا dadka jiljilicsan oo kale dadka da'da xanuunadan u jilicsan dadka xanuunada khaaska qabay khaasatan neef mareenka iyo sanbabada iyo kaliyaha iyo inta badan u jilicsan xanuunadan ruqso waxay u haystaan inay jamaacadka aynan imaanin oo meelahooda isaga tukadaan laana diinteennu jumcada iyo jamaacadka waxyaalaha meesha uga saarta waxa kamid ah cudurdaarka noqda inuu ruuxu cabsi qabo hadduu ruuxu cabsi qabo ama xanuun ha ka baqo ama cadow ha ka baqo ama xoolihiisa ha u baqo ama reerkiisa ilmihiisa ha u baqo hadduu cabsi timaado jumcadii jamaacadkii waxaa la leeyahay isaga joog marka haddii xanuunku gudbayana waa ka sii daraya asbaabta waa inaan qaadano waxaa ka mid ah asbaabta iyo tadaabiirta jihaadka caafimaadka iyo faydhowrka ay ka hadlayaan oo nadaafadda iyo wixii la mid ah in nadaafadda lagu dadaalo gacmaha la dhaqdo la isnadiifiyo يعني waxay muxuu ahay goobaha gaar ahaan loo isugu imaanaya laga dadaalo iyadana waxay ka mid tahay waxyaalaha diinteenu in ay faraysay ka mid tahay wiqaayadii is-ilaalintii bay qayb ka tahay diinteenana ina faraysa intayna dhaqaatiirtu ina farin diinteenna ina faraysa intayna dawladii ina farin diinta ina faraysa inaynu ku dadaalo nadaafadda oo diinteenuna waa diin nadaafad waay maalinkii ugu yaraan 5 goor inaan weysaysaniyo ka badan oo xubnaha iyo sanka iyo afka iyo la dhaqo diin kale laga helayo ma jirto diin kale laga helayo ma jirto waa ka nabi ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam sidii ruux wabi gurigiisa hortiisa uu marayo maalinkiiba 5 goor uu ku qabaysanayo maalinkiiba ugu yaraan 5 goor uu ku qabaysanayo nadaafad waa ummad nadaafad waay ummad wasakheed ma nadaafada marka inaynu ku dadaalo meel walba oo nadaafada aad loogu dadaalo asbaabta ay ka mid tahay in la qaato loo baahan yahay أما مسألة كوسابسن مساجد حديدة أو أي مساجد قاركود هذا كتلاب قادر أيضا دولة ولي وح أمرك صابحين أو توس أو كو إلزامين يا أمد إن جوابها عبادة حران أيضا ولي أين صابحين إن لسيهر أرضو مساجد اللحرو أو ما أنت الجمعة دي ميل لقلت كذا لا هي أو جماعات كي مساجد اللحرو أرنتاسي وحوي وأرن خطرت هذا الواحد مآلات حنا ويلاد هاي إيه وحياب حنا وكرلن كراي آد بيقول علوستهاي أيضا مسألة أيت مسألة علماء العالم الإسلامي كدو ذيان ما بنان تميس ما بنانا إن عذر رد راد مساجد الله حلو دودي كتاجن تاي دحدو أيضا دولتها قاركود أي كل يردين إن مساجد يحدان حتى حرمين كي يحدان أي كل يردين حدنا مع ذلك وضع جنواكل الدوية هاي مسألتنا هبل بامرية كذب مرمئه روح دينتيسا iyo alla ka cabsigiisa inuu ictimaada loo baahan yahay wuxuu ku qanacsan yahayna ka diin dhigto markaan akhrino qowl Allah tabaaraka wa ta'ala waman adlamu mimman mana'a masajid Allah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ya ka dulmi badan ma jira cid ka dulmi badan adoomada ruuxa ugu dulmi badan waa ruux masaajida Ilaahay in Ilaahay lagu xuso u diiday ka shaqeeyay siday u kharaabi lahayd oo looga kala tagi lahaa u cid loobi lahaa ruuxa ka shaqeeyay ruux ka dulmi badan ma jiro buu quraanka kariimka yiri dadka Ilaahay wuxuu yiri tabaaraka wa ta'ala masaajida inay u soo dhawaadaan maba ahayn ilaa iyagoo baqaya mooye cadaab xanuun badan bay adduunka ku leeyihiin aakhirana cadaab weyn bay ku leeyihiin goodiga inta leeg markaad aragto muslimna tahay aakhiraya Ilaahina aad ka baqayso Allah aad ka baqayso way adag tahay inaad ku dhiirato tiraahdo adoo khiyaar leh masaajida iridaha loo xidho yaa qaadi kara mas'uuliyadda iyada yaa inda adayga heer kaale yaa geesinimada noocaasi ay ku jirtaa ani ma aha ma qaadi karo amaam Allah mas'uuliyad maxaad u xidhay masaajidkaygii ma qaadi karo haddii sajihooyinka rasmiga ay amraan ayagu yimaadaan oo quful ku jabiyaan markaasi waxa weeye xeeladanadii awooddanada intaasay ku etay macduuriin baan nahay markaas macduuriin baan nahay amaam Allah tabaaraka wa ta'ala saas daraadeed masaajida waa loo soo carraa masaa'ibtu markay dhacaan nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamu calayhi gaalada markuu la dagaalamayo suuratu nisaa waad akhrideen xaaladda khawfka macrakada lagu jiro dagaalku taagan yahay muslimiinta iyo gaaladii is hor taagan yihiin hubka la isla hor joogo meesha iyada ah Allah wuxuu amray salaada jamaacada in lagu tukado
وخوف حقيقي واي ما خوف اسمه تسيسة ما ها مساجك وحد نحفر كرا روح فيروس قبا أما كورونا فيروس قبا كل شيء كرا وعدو ليس هرتاجية هذا مع ذلك الله وحو أمري إن جماعة عدل أوجو وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم هل تحذروا لكن جماعة عدل يلقتين ومعركة يقوبت دقال كوان عبسيدة كدر يا حقيقة شرتها تاريخ دير المسلمين تو أيليهين oo cudurro kuwan ka darani soo mareen oo kumayaal iyo boqolaal kun ay dhimanayeen madaxda muslimiintu kumayna dhiiranin masaajidda hal la xidho culimadii muslimiintuna way ka sariigteen way ka gaabsadeen inay fatwoodaan masaajidda la hal la xidho bal dhacdooyinka taariikhda qaar ka mid ah waxay tilmaamayaan in la yiri masaajidda ha lagu cararo fafirru ila allah wastaciinu bis-sabri was-salah والصلاة يا صبر ككاشدة إلهي كعررة الله كعررة ما جار أهان وحعاب نوا إن جدت كان هذا كين يدقن دولتي هدينا أمر صارين ويأكتها مساجد يتجمعات كل ويأكتها هي كنائس تسيدوك الجوبها عبادة ويأكتها ولي الدولة ده أمر كما صابحين والله جاي بينو صابح لكن ولي ما صابحين كنائستي خاصة قولها كنائستا كاثوليك ودنك hadday amar ku soo saareen axadan soo socota in la isugu yimaado kaniisadaha si dalka loogu duceeyo masaajideeniina maanta ay xidhan tahay ceeb ma nagu taamisan nagu ma aha billahi calaykum miyaysan ceeb kugu ahayn haddii cudur laga cararayo dawladdu amar ha soo rogto kaniisaduhu ha xidhmaan masaajidda markaasi ciddii xidhaysa ha xidho laakiin kaniisadihii baa ducaynaya madaxweynihii baa dadkii ugu yeedhay gaar iyo muslim bay soo yimaada aan ducaysanne masaajidannadiina waa xidhayihiin waa ceeb ma ahayn waxay ahayd ugu yaraan in la sugo bal sida wax isu bedelaan dhacdooyinka waddanka la tira koobay waa waxaan ilaa hadda 10 gaadhaynin dadku asiibay dhimashana ma jirto soo degdeg ma aha wixii waliba kow joogin inaad sii hor orodood ilaahay masaajidiisii aad quful ku taagto arrimahaasi wax weeye arrimo runtii wax weeye aad iyo aad ruuxa muslimka cabsi inuu uga qabo oo dareen uga qabo oo culeyskeeda dareemo dad fara badan oo muslimiin oo pressure ku haya masaajidda in la xidho in badan oo kamida ma garanayaan qadarka iyo qiimaha ay ku fadhido masaajidda furaantooda in badan oo kamida cilmiga maadiga barteen waa dhaqaatiir in badan oo kamida waa siyaasiyiin ma yaqaanaan wasanka ay leedahay masaajid iyo furnaantiisu sidaas daraadeed qaybtay barteen baa la weyn laakiin qaybtan kaleeto in badan tixgelin ma siinayaan saas daraadeed baa waxaan leenahay masaajidda ilaahay tabaaraka wa tacaala wax loo xidho waa wax ka tegay masaajidda yaan la xidhin laakiin ijraa'aadka iyo wixii kale la qaadan karo iyo asbaabtii kale iyo wixii taxadar ah ee inoo furani inaynu qaadanno haddii amar naga sarreeya yimaadana markaa macduuriin baan nahay وأنه هذا دولة أنظمة شرطة هل لجا هرتجو هل الديدو هل لجو بوق ما قمنا لكن وحوي مركزي وحي كل دوانته مرنا هذا خيار كاجا كحري مرنا أود كحق بدن باحري تندم من عذر دار بعض كل هذا تهرنا عذر دار مليه سيداس درادة إلهي تبارك وتعالى عذر ضني آفات كنا الله ينقصر فيه وإلهي تبارك وتعالى ومدن عافي ماذا الله سيه وبلاد دي يضل كذا أمان الله كسيه وإلهي تبارك وتعالى مصائبته ينقصر فيه وإنتو كدعي إلهي تبارك وتعالى عافي ما دقدق هسيه والله تبارك وتعالى أدومديسا توبدودها أقبل ذنوبتودها ضافو إلهي أسبابتك كنتي مصائبتك كنتي إلهي تبارك وتعالى هينا وافتشيو أسبابتها سيدان أصحي لهين إلهينا تبارك وتعالى ديقامد المسلمين تبا الله ينقول نبدياله صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك